بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل walba aad joogtaan oo naga daawanaysaanba kusoo dhawaada TV-ga caalamiga ee Somali Channel waa barnaamijkii la magac baxay Puntland iyo maanta barnaamijkan oo ahmiyadiisu ay tahay in lagu taageero maamul wanaaga xasiloonida nabad u raadinta horumarinta Puntland ayaa isla markaana barnaamijkan wuxuu ku dhiiranayaa inuu ka hadlo xaqa iyo xaqiiqda ka jirta Puntland asagoo boorinaya raadinayna maamul wanaag kalsooni iyo in shacabka codkooda la maqlo meel dheerna la gaarsiiyo hadii alla idmo barnaamijkeena maanta waxaanu mar labaad nasiib u yeelanay inay nagala soo qayb galaan waxgaradka iyo jaaliyada Puntland ee qurbaha ku dhaqan ragga ugu codadka dhaadheer aad baan uga mahadcelinayaa Abshir Muuse Saciid oo aan introduction badan uga baahnayn dawladii hore wax badan ka soo qabtay Puntland ahaa ragii asaaskeedii shaqo weyn ka geystay sidoo kale waxa dhinacayga biixda fadhiya Suldaan Cabdulqaadir Ciise Axmed oo ah activiste hawlo badan ka soo qabtay mar walbana xalka iyo horumarinta Puntland ka taliya balse inta aynan u gudbin martideena labadiina horta marka hore ku soo dhawaada Puntland maanta aad badan kaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga intaanan u gudbin martideeda qaaliga bal aynu eegno farsamo yaqaanka aan ka codsano codadka ugu dambeeyay oo ka soo yeeray Puntland odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada Dharkeengeeyo ayaa waxa isugu yimaadeen kulan ay kaga jawaabayaan hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ahaa hadalkii uu ka jeediyay kalfadhigii 27aad ee golaha wakiilada Puntland uu ku sheegay in degmada Dharkeengeeyo ay xarumo ku leeyihiin xarakada shabaabul mujaahidiin waxgaradka magaalada Dharkeengeeyo oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa waxa ay ka biyadiideen eedeymaha ay Puntland u soo jeedisay ayna ka arimin goboladan ayaa waxa ay arintan ku micneeyeen in Puntland ay ka wado gobolada SSC arimo lid kuwa ammaanka salaanta ka bacdi adduunyaha oo dhan waxaan halkan kaga hadlaynaa madaxweynaha Puntland sheeganayay laakiin hadda loo yaqaano Cabdiraxmaan Firdhiye eedaynuu u soo jeediyay degmada Dharkeengeeyo iyo dhul badan oo ay degaan beesha dhulbahante oo ku abtirsata Khaatumatu eedaynta uu soo jeediyay oo aan waxba ka jirin waxaan kale oo sheegaynaa faroole marka la sheego run ahaantii waxa weeye wuxuu ku soo galay doorashada markii hore oo uu abaabulay nimanka la yiraahdo burcadbadeeda dhaqaalihii iyo dhaqankii iyo hubkii uu ka helay waxaanu ku siinay madaxnimada ayuu rabshad iyo dil iyo dhibaato idinku abuuray nin waliba baayac mushtariga meel buu ka yaqaanaa ninkaas hadda waxa uu ka bartay dadka Soomaalida inuu dhaqaale kaga raadiyo ama waa al-shabaab ama waa qoladii ayar oo dhalatay burcadbadeeda ama nimankii ayar oo NLF oo la soo qabqabto halkaas uu hadda ka bilaabay baayac mushtariga halkaas uu ka yaqaanaa sida aanu aragnay Faroole Firdhiye aan ka codsanaynaa ummadda garowga ah ummad badan oo Soomaaliya ama danta guud oo dhan u ah magaalo madax waxa uu Firdhiye uu ku wado isaga iyo mid la mid ah hadeerna in xilka laga dhigo dibna aan loogu soo dooro yiri degmada Dharkeengeeyo iyo meelo badan oo dadkan Khaatumatu uu degan yahay oo ilaa 6 meelood ah yaa kamida uu saxaafada u sheegay inay waxba ka jirin odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in degmada Dharkeengeeyo uusan ka shaqeyn maamulka Puntland isla markaana uu shaqo ku lahayn Faroole baaqeen in uu faraha kala baxo arimaha magaalada Dharkeengeeyo hadii uu baaqani ka dhaga adeegana ay talaabo ka qaadi doonaan waa sida ay hadalka u dhigeen salaanta iiga horeysa maxaad ka mudaharaadeen oo isugu soo baxdeen maxaad ka mudaharaadeen hadalkii madaxweynaha Puntland hadalkii madaxweynaha Harti kaasaad ka mudaharaadeen waa idinku waxa ayaan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay farsamo yaqaankeyga iyo warayaasheeda kale oo ku dhaqan Puntland oo cliptaas noo soo gudbiyay waana muhiimada programka Puntland iyo maanta in runtii banaanka la soo dhigo codadka shacabka ama dawladda ha taageeraan ama walwal kala ha qabaan annaga waxa naga go'an hadaan nahay bahda Puntland iyo maantaba si xaq ah oo balance ah oo miisaaman inaanu banaanka u soo dhigano xaqiiqda iyo runta ka jirtana aanu banaanka soo dhigno haddii aan u soo noqdo martideeda aan kusoo horeeyo Abshir Muuse Siciid aad wada garanaysaan Abshir waa khibrad dheer baad u leedahay Puntland iyo historygeeda ragii asaasaadba ku jirtay marxaladda hadda la marayo waa la socotaa baaqa ka soo yeeray waad aragtaa beelihii kale sidee baad is leedahay maxaa khaldan see wax u jiraan بسم الله الرحمن الرحيم سيدي wax u jiraan waa si cad oo qof walba u jeedo wax la wadaagay oo dad ku dhintay oo loo soo halgamay baan isa siiyay hadduu isa siiyena inuu markaa macaash ku doonto oo uusan taladii cidna wax ka siin taasoo ah mid shido iyo burbur keeni kadha inay tahay waxa socday waayadan oo dhan wadamada carabta ah oo inuu ka mid nahay in kacdoon jiray kacdoonkaasoo ka bilowday markii hore dalka Tunis ka bilowday bacdeen Masar ku xigtay Bahrain ku xigtay Yemen ilaahay waa ku rooyahay Libya marka dadkii hadda dad la dilay iyo dad cararay iyo dad xiran bay u qaybsameen dadkuna dadkaas inuu ka midna dadku hadduusan ka gilgilanayn dhibaatada haysata waayaan dar annagu malihin hadda madaxweynaha lagu kaco oo ilaahay waa ku rooye ha loo galo sidaas oo kale laakiin way imaan hadduusan iska dayn waxa uu ku jiro oo uusan talada dadka maqal way imaanaysaa in sidaa la yeelo iyo si ka daranba haddii alla idmo anigu saasaan u arkaa Abshir marxaladda waa saad sheegtay kacdoonkaana wuu ka jiraa Middle East oo dhan haddii la fiiriyo marka kacdoonkan hadda carabahoo dhan ka jira dhaqaalaha reer Yurub cabaad ka yeerayo geeska Afrika oo siyaasad ahaan qalalaasayaal badan ku jirto dhinacan kale xamar iyo al-shabaab iyo nin walbo maalin walba nin madax duuban oo meel uu ka yimid aqoon oo leeyahay galkacyo wax ku dilay ma la oran karaa dawladda ama maamulka hadda jiraahay waxyaalo badan oo ay saxeen baa jira laakiin marxalado kulul bay ku soo aadeen ma la oran karaa والله أوران كرايو حتى دتك قاركيس وحبوا الناس بينها لبعتها يدلك السعداء إلى مسؤول كيهين مدحضة لفتقود مدحضة لفتقود إلى مسؤول كيهين أما حلبانو اللي دلها النقدان أما بيلك لو لايو ولا إسكور كان هالنقدان إلى يجو مسؤول كيهين بابا عد وخاصة النكا وذاك عن الصحيف كنا مدحوينا شيء كناي تلمامتو يسوي كسعتها كل عيسى إن هدي إن horumarka Puntland laga hadlo Puntland waxay ahayd maamul yar oo dadkii aasaasay ay ku jirteen oo geeska Soomaaliya oo laga yaqaanay madaxweyne Faroole xiriirka caalamiga iskaashiga ummadaha reer Yurub iyo reer galbeedka iyo America heerka uu gaarsiiyay ama profile-ka Puntland oo kor ka soo qaaday in lagu qiimeeyo meesha ma ku jirta ayada laftigeeda way ku jirtaa in lagu qiimeeyo oo xisaabo badan baa laga hayaa ama burcad badeed ha noqoto ama shirkado shidaal la siiyay isaga wiilashiisu ha noqdaan oo la hayo maaragtaa waxa ay qaateen xisaabo badan baa laga hayaa oo dhibaato ah oo u keenaya dhibaato Soomaaliya oo dhan Puntland hadalkeed ba iska daayay iyada gaar ahaan u taabanaya marka mas'uul bay ka yihiin baan oran karaa aad baa mahadsantahay ku soo noqonaya Suldaan walwalku intaan kale kaliya kuma yara waxaa jirta odayaashii ismadii iyaga laftigoodu roolkoodii bay gabeen ma la oran karaa maxay uga qayb qaadan laayihiin nabadda raadinta dawladdu wax walba ma qaban karto haddaan ismada iyo shacabku la shaqayn isin qalafsan iyo shacab dhaga adag ninka madaxda ma la iska eedeynaya ma dadku way la shaqeeyaan bismillaahi raxmaani raxiim ninka ku yiraahda waxana ku filan لكم قبصة ارتوى اللودة هي سديدا سؤال شو كجواب دونا لكن هذين مسك كان أنا كفلنا ترى هذا مراد يوحى كلا دعيانه أنت هذا جيبي يضر الله هذا دوا اللودة هي أنا الله يحرص على يده هذا ترى تاسو جرت هذانا
ku siin maayo isimada gar inay u daayaan waayo 66 baa ninkan doortay si maamulkaas iyo maaragtay abshir iyo halka ay la joogo ay maaragtay u tukubo oo Soomaaliya loogu raadiyo ayay 66 doortay laakiin isimada waxa doortay ummadda dhulka joogto oo dhan marka ninka 66 dooratay shaqadaadii ka eriyay ma oran karo hada mushaharna kuma qaataan oo dadkooda iyagu xurmay leeyihiin marka xurmada shacabka ka qaadi karo tafaroola kama qaadi karo ninkii marka yiraahdo oo u baylihiya waxaan uga tagay ninkaasaan uga tagay ninkii yiraahdo horta waxay la tahay inuu khaldan yahay ismada roolkoodu waxa weeye inay wax qabtaan laakiin hadda ka hor baan su-aasha ka jawaabay waxay ahayd 3 qof oo fagaaraha lagu dilo tii ahayd marka shacabku hadday sacab tumeen macnaha ka horabay ahayd moogta isinka haddaan la maqlayno dadku danaynayaan ninkaa meesha jooga marka meeshaan kala haway hunguriwood ma arko qolada maamulka iyo cid kastoo maanta wax danaynayso meesha in yar dhabaa ku qabta horta waxaan leeyahay haantaada qaroorkeeda reerkaaga looguma taliyo haantaada qaroorkeeda reerka laguma hayaamin karo qaroorku waa maanta dhaalku intuu imanaya ilmaha lagu waraabiya marka waxaan leeyahay ismadu roolkoodu way gabeen somehow laakiin tii shacabka haddaanay maqlayno shacabka meel kale u dhega nuglaadeen danaynayaan isimada laftigeeda haddaan fiirno isimadu taariikhda Puntland waa dad xadaarad leh waa dad ilbaxnimada Soomaalida oo dhan lagu toomo ama lagu tiriyaba suldaamada iyo isimaduna taariikh dheer bay ka qaateen ilaa ay haddana uga jireen maxaa liiday oo hadda mise wax u jiraan maamulkan iyo suldaamada maxaa iska horkeenay isimada maamulkan waxa iska horkeenay dee shaqadoodu ku qabsaday inta u tagteen idinkoo u diyaar ah inaad dawladda taageertaan ilaa marxalad xun baa lagu jiray si challenge-yada hadda face gareynaya dawladda looga gudbo waan ku taageersanahay maxaan kula qabanaa ku dhahdeen muddo personally anigu waa ku yiri hadeer waxa laga yaabaa inuu dhageysanayo maxaa lagu jawaab ninkii dibadaha ka hadli jiray soo adiga ma ahayn haabaan rag badanina way joogeen haabaan ku yiri waxaa naga rabtay waxaan ku yiri dawladda la talinay meelaha daldaloshana waa naga gufeynay warkaa lama garowsanay wuxuu yiri sidoo guriga madaxtooyada isagu leeyahay iga bax waa u soo noqonaynaa taas adeer abshir dhinaca nabadgelyada haddaan u soo noqono walwal badan baa kasoo yeeraya dhinacan goboladan mudug magaalada Gaalkacyo dadkan la leynayo militarigu ama ciidamada booliisku capacity ma leeyihiin ay nabadgelyada ku sugaan oo ay waxaan wax leynayo uga hortagaan dawladdu sarwalka ka qaadan kartaa horta ciidamadu waa leeyihiin capacity ay wax ku qabtaan shidada maanta socota ay wax kaga qabtaan laakiin yaa hogaanka u haya hogaanka waxa u haya cid rabta inay shidadu socoto sidaa aawadeed bay shidadii usii soconaysaa meelo badan ku badanaysaa oo kusii fidaysaa marka ciidamadu waa ammaanan yihiin iyagii baa qaati jooga waxaan oran lahayn madaxda ciidamada ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee ka daaya lugooyada ciidamada aad ku wadaan oo ha iska horkeeninina shacabka iyo ciidamada hadday iska hor yimaadaan bannaan joogi maysaan shidadii idinka idinku soo noqonaysa midda kale waxaa ayaamahan meediyadu qoraysay in ciidamo shisheeye laga yaabo in Puntland la keeno ma baahi ciidamo shisheeya mooysan dhalinyarada iyo militariga Puntland ku filayn sugista maxaa loola jeedaa baa taa islaada keenista ciidamada shisheeye aniga waxay ila tahay waxa loola jeedaa keligi tashi si ninka odaga ahi uu u muquuniyo dadkii inuu ku bajiyo ciidan baan keenaya ciidanku waa ku filan yahay wax kasta oo xaqa oo nadaama oo lagu hogaaminayo inay shidada joojiyaan laakiin shidadii maxay dhashay ciidan baan keenay waxay keentay in mudug tiraahdo anagu Puntland waa ka go'aynaa
hadda waxay igu maqaalaha waa ka noqday baa la yiri laakiin hadba haddii riwaayad laysu dhigayo oo ilaahay waa kuu rooyay maalinba uun weji lala imaanayo ma aha wax dad dhiqi kara ma aha wax la wadaago wax qof ku amar ku taaglayn karo oo suu doono isagu ka yeeli karo dhinac kale aan kusoo noqdo suldaan maamulku waxaa runtii hortaalla marxalad kulul oo adag waxaa ka mid ah nin inta madaxa iska soo duubtay dad masaakiina meel ku laayay maamulku uusan shaqo ku lahayn al-shabaab baa ka dambeysay la isku hayo dhinacii kale dadkii laftigoodii reer puntland oo aan qaarkood lagu tilmaami karo ama qabiil ahaan meesha ha ku jirto ama siyaalo kale ha eegaanba inaysan maamulka si daacadnimo ula shaqaynayn ma la oran karaa marka dhibaatooyin badan oo shacbigu laftigoodu ay eedaha qaar ku leeyihiin baa jira ee dowladda iyo mas-uuliyiinta kaliya lama saari kara ma la oran karaa waxa dhacayo oo dhan maamulka ka dambeeya shacabkuna waxay dembi ku leeyihiin waaba iska qaban waayeenba waxa kan iyagaa watay saantaada sababtaada hadday kulmaan sirxaan yaa lagu moodaa waxaan iyagaa watay habeenkay meeshan qabteen baa waxaanay dhasheen puntland ma aha ingiriiska oo kale ma aha masar oo kale ma aha wadamada waaweyn oo london 20 milyan baa kusoo hoyatay habeenkii qaahiro kale ma aha waa dad iswada ina ayay yaqaan oo sidaa inuu isugu garanaya dadka meesha degan harka maalin weyn baa saal magaalada boosaaso anoo jooga baa waxaa lagu dilay xeerlaaliyihii cali jaamac qalas waa 6 saac maalinimo allah u naxariisto laba wiil bastolada dilay halkaasay jeebka gashadeen oo mareen magaaladana waxa badan dadka tuutaha iyo qoriga sita iyo shacabka caadiga kuwaas badan lagu shaahidtu ma ahayn kuwa madaxtooyada galay intay dad laayeen oo xildhibaanna dileen oo madaxtooyada galeen waa la sheegaya waa sida la leeyahay anigu laakiin shaahidtu ma ahayn laakiin haddii la qaban waayey qofka waxa qof aan har madow yani habeen madow intuu qof u soo dhaco keligiisa dila baa la soo qabtaa adduunka aan cidi u jeedin oo baaris lagu soo qabtaa see u dhici kartaa suuqa barbarihiisa dad isgaranaya magaalo 50 kun ama 20 kun ku nooshahay oo meel xad looga gudbayo iyo webi laga talaabayo iyo aanay jirin see u dhici kartaa in qofna laga soo qaban waayo dadka eliidka oo dhan waa dhamaadeen xildhibaano saraakiil yani dadka ugu qiimaha badnaa waa dhamaadeen marka waxaan maamulka wato shacabkuna khaladka uu leeyahay waxa weeye waxa ku sameynaya iska qaban la'yiin dhinaca haddaan fiirino martida daawadayaasha kale oo puntland emailadii aan last week programkooda ka hadlay waxaa ka mid ahaa waxaa jirta horumar dhinaca dhaqaalaha dhinaca waxbarashada ah waxaa jirta horumar dhinaca dhismaha magaalooyinku siday u dhismeen sida magaalada garowe oo kale horumar badan oo jira baa laleeyahay in kaas la qiro oo banaanka lasoo dhigo oo inta san laga talay maanay habbooneyn way habboon tahay wax qabsoome laakiin ka badan baa la qaban kari hadda xagga maaliyadda marka la eego waxa weeye haddii nidaam jiro oo ilaahay waa kuu rooyahay wixii soo gala lala xisaabtamayo oo cashuurta maaragta la nadaaminayo dee way habboonaan lahayd oo meel lamidii ma jidheen hadda waxaa dhacday in dadkii ganacsatada ahaa ama xoolihii ama cid wax kastaba inay berbere ula cararaan oo ay yiraahdaan war halkan waa meel laysku cunaya xaggaa noo ro marka taa mas-uuliyaddeedana waxa le madaxda maamulkaa le shacabku ma leh marka shacabku intuu u cararayo berbera muxuu ugu khasbi waayey maamulka inuu yiraahdo war naga daayo waxaan nama qabatee waxaan qabaa inuu yiraahdana haddii shacabku dhaqaaleyda ama ganacsatada reer puntland iyagoo u daneynaya dankooda iyo dalkooda haddii ay ahmiyadooda ama fikirkoodii hore ahayd inay boosaaso dekadooda isticmaalaan oo qofkii ka shaqeynaya uu noqdo reer puntland oo canshuurtii meeshii galaysa ay noqoto puntland haddii ay saas dadkaas uga cararaan soo dhaqaalaha puntland oo dhan kalabsiba noqonaya ma dhacay waa noqonayaa wuxuu u noqonayaa waxyaabo badan awgood waa mare horta waxa ugu badan meelaha wax laga helo waa dekeda iyo aeroboortka aeroboortkii waxa uu madaxdeenu tiri diyaarad ka degi ka dhaaba male waa inay garowe ka wada degtaa
garow annagaa ka dhignay magaalo madaxdii puntland waa dadkayagii iyo magaaladayadii laakiin magaalooyinka kale in lagu baabi'iyo ma ganacsatadii in lagu baabi'iyo ma dhaqaalihii in lagu baabi'iyo ma annaga waxaanina waxay naga tahay xumayn maahane in wax la saxo marka waxaanu leenahay war isa saxa haddaydinaan isa sixin waxa carab ku dhacday ku dhacaysa madaxdii oo khaasatan cabdiraxmaano aan kuusoo noqdo abshir runtii experience iyo xirfad iyo wadaninimo badan oo muuqata buu talooyin kulkulul bixinayaa suldaan dhinaca suldaamada ama isimada dadka waxa horkaca oo hogaamiya oo beelaha dhaha war aan wixii xumaantaana iska qabano waxa samaantaana isku raacno dowladeena maamul wanaaga iyo wixii wanaagana aan ku taageerno wixii khaladana aan iska qabano waxa dhaha waa isimada maxaad isleedahay roolkebe ka ciyaari karaan maxaad ku leedahay isimada Puntland isimadu hay damayso horta waxaan ku hormarayaa maamulka waxa weeye abshir baaba inagala jooga raggii maamulka dhisay oo odayaasha ka ahaa waxa weeye wax la wada dhistay oo la wadaago buu ahaa maamulkan hadda lama wadaago maamul la wadaago dadka qabaa'ilka ahaa wax isku darsaday waxba kuma leh reer walba ninkay naceen baa looga yeertay oo la yiri iyagu wajiga la tusay gurigaasu ka dhashay baa horta meesha ku jira waa nimankan lahaa weeye war qaroorka haantaada qaroorkeeda looguma taliyo qolada aan leeyahay waa nimanka maamulka ku jira shalay waa ogeyd oo nin wasiira baa xilki laga qaado maanta xilki laga qaaday tiri baa leeyahay waa yara xanuunsanahay ciidan baa loo soo diray wiilal baa u yimi dharbaxa lagala daalay oo waa la xiray hadduu saacada xiraabaa la soo daayay la xilka tiri gaariga keen oo aynkan yani horta niman meesha ku jooga weji iyo wanaag maaha oo haddii dad baa garaynaya miisaankii wax lagu qaybsado power sharinka ah noocaa loolama dhaqmeen horta marka horta kuwaasaan leeyahay meesha inaan maamul ka jirin baarlamaan inuusan jirinna waa aniga hore ugu sheegay isimadu waxa ay oran karaan maamul horta isin ma oran karo hala weeraro nina kale meesha laga saaro adduunka waa aragtay weerar may macnaha kama wado arrintan maamulkii waa la dhisay ninkii waa la doortay ninkii la doortay sidii wax loo qaybsan jiray wax looma qaybsane isagaa dad aan macno lahayn meeshii keensaday inaan caayayo maaha illa waxaan dhacayabay wax ka oran lahayn kama oran karaan waxaa ka hor jooga dee ama qutulyoon baa ka hor jooga ama baqdin baa ka hor joogta baqdini hadday saas u jirto oo aan dowladda waxba laga sheegi karin maxaad isleedahay adigu intaad national television soo fariistid inaad saas u criticize garaysid ninka saa looga baqayo adiga ahaa anigu waxaan ogahay inaan waktina dhashay waktina dhimanayo haddaan wax khalada cidma inaan caayo ma rabo cidna in af la gaadhayo ma rabo waxaan right u leeyahay waan xaq u leeyahay oo ummadda mas-uuliyadda aan u hayo iyo tan odaytinimadayda mas-uuliyadeyda waxa inaan ka hadlo wixii aan arkay soo maha intaasoo kale oo mas-uuliyada miyaanay in oran kartaa way jirtaa laakiin idaacada inaan wadankiiba laga ogolayn mise ma hogid idaacadaba inaan laga ogolayn marka maxaa lagu hadla dadka microphone lama wareegi karo nin oday runtii websaydyo badan baa jira idaacadooyin baa jira aan tan baarlamaanka laftigeeda wadanku macnaha dhinacayaala uu qaldan yahay jirto laakiin baarlamaan ma jiro ruma ku sheegay haddii baarlamaan jiro waxa la oran lahaa dastuur intaa la iska qoro oo nin hebel magaciisa maqaanay nin oday baa soo qoray keligiisa alla xilsaariyay soo qoray kii lagu heshiiyey oo yaal baa la tiiriyey waxa la yiri waa lagu sii shaqeynayaa oo hadda lagu shaqeeyaa lagu shaqeeyaa kumeel gaar duuya kumeel gaar soo wuxuuna ansixiyaan Soomaa hadda waxa la leeyahay kii haddana ergooyin baa 3 wasaaradood wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda haweenka wasaaradda amniga saddexda wasaaradood hadiiba kaba dhigba nin walba gurigiisii la yiraahdo orod waxa cid ka keen hadii la wasiir walba orod gurigiina wax ka keenata waxbay ahaan lahayd moogta saddexda wasaaradood baa waxa la yiri orod wax keena dad keena codaya ogada kan codaya nabad gariya jirta waxba leeyahay shirka Soomaaliya lagu qabanayo xagga lagu maxaa diiday in afti la qaado xataa waa u soo gudbi doonaa tan meesha wax ka jira ma jiraan taas kolley
waa jiraan nidaam waa jira ha lahaato criticizekiisa programkan Puntland dekada cashuurta laga qaada xawala dekada cashuurta laga qaadana maamuliyadu hataa SDF aan awood badan lahayn waa kan abshire ayaa la qaadi jiray ganacsatada waxay hore ugu heshiisay weeye cidii waardiyeynaysaa bay ahayd waaga hore ha ka qaataan mushaar waardiyeyn dekada un baa laga qaadana maamulka ma jiro aynu isfahanno ahmiyadda programku waxa weeye inaynu dadka tubka toosan u tilmaano dabcan wax waa jiraan wax waa qaldan yihiin aimkeena iyo objectivekeenu ha ahaado war maxaa qaldan iyo seebaan u hagnaa aan ka gudbo midaas manka dabcan baarlamaan waa jira iinihiisa iyo daldaloolkiisa iyo waa jiraan laakiin baarlamaan iyo wasiiro iyo system dhisan waa jira sidii laga rabay inaysan hadii ay ka hadi baarlamaanku hadda soo nimankii isaga impeachment ku qaadi lahaa shaqada ka erigi karay Soma ha iyagu ruqsaya de baarlamaanyin xagee lagu arkay madaxweynaha baarlamaanka ruqsayna waa ku soo noqonaya taas kale waxa nooga soo jawaab doonta hadii aad tahay ama baarlamaanka ku jirtid ama aad tahay nin xogaalaalo ah email-ladayda Puntland iyo maanta@somalijournal.com bal aynu eegno daawadayaal few calls baan qaadanaynaa waqtiga iska yar awgiis daawadaha u horeeya adigoo TV-ga iska gaaminaya fadlan si xushmad leh oo kooban u soo koobaya magacaaga meeshaad ka soo hadlaysan ku bilaabaya assalaamu calaykum عليكم فضلا TV-ga iska gaab walaal magacaaga meeshaad ka soo hadlayso السلام عليكم waxaan ka soo hadlayaa Puntland fadal TV-ga iska gaab walaal Puntland iyo maanta maxay kula tahay barnaamijkii arinta meesha uga hadlayno والله waxay ila tahay nasiib daro in barnaamijkan oo raba ummadda inuu kor ugu qaado wacyigeeda in aan loo isticmaalo qaab maaragtay in qof ama shakhsi ama dad lagu caayo waxaan u malaynayaa daawada adigoo mahadsan waxaan u malaynayaa inaan shakhsi iyo personal wax loo caayahay aysan jirin aan isku dayayna inaan dadka u tilmaano tubta toosan fikirkaaga ku soo darso waadna ku soo dhawow daawadaha kale aanu eegno bal qofka ku xiga alo assalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu fadal walaal ku soo dhawow Puntland iyo maanta fikirkaaga ku aadan walaal waa horta waa ku mahadsantihiin inaad barnaamijkan keentaan waana ku faraxsanahay laakiin waxaa u malaynaysaa inaad la soo daahdeen oo markii universal waxaan dhihi lahaa Somali Journal laga soo eriyey Puntland inaad bilowdeen laakiin xilligaad joogteen baa fiicnaan lahayd inaad dadka baraarujisaan waa ogtiin ummadaha kale oo dhan waxay ku horumareen in wax la saxo waxna la isu sheego lagana baqanin waxa jira nimanka odayaasha oo kula joogana waa salaamaya waxaadna fiicnaan lahayd inaad u isticmaashaan barnaamij wax saxiin ah rather than criticize sababtoo qof kasta oo reer Puntland waxaa mas'uuliyad ka saaran waxa qaldan inuu wax ka qabto aad iyo aad baad u mahadsan tahay taladaada iyo tusaaleyntaaduna waa noo muhiim insha Allah waana wadi doonaa barnaamijka bal aan eegno qofka ku xiga assalaamu calaykum walaal adoo TV-ga iska gaabinaya magacaaga meeshaad ka soo hadlayso hello qofka ku xiga aan eegno walaal TV-ga iska gaabi magacaaga meeshaad ka soo hadlayso السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسر لو بنت لاني ما أنت فكر كاجا ولا فكر كيان كهرليا أنا وحنا كبرها بدلانا وحنا هدتك وحكد جم بدلان بان هاي مركي لقيسنا وحلي يراهدو دولتنا ضدنا لجنة الجريات كده هذا رئيس كل طبيعي وكله تدقوا محيط البدلة وعدد سيقانا واحد سنوي يعني أغنى وحيهين مركا نينك اللي يراهدو فروله وحبايا اللي هذين نمكا ماشي فدي واحد يعكر طينا يلوغيهين بقى سببتها ولقاها بلا بكاس وعدد سيقانا إلا هبل بنسونا غانا هذا فراسي لقا قدنا إياه لقا مهر ليو مركا إلا تغغب صدا حق هذا كينيسا
waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay u malayn mayo intaan aqoon iyo u leenahay in ay macnaha ilaa iyo xadkaas heshiisaasi uu jiro war adna xagga naga criticize garee ma u malaynayo waa niman ehludiin oo aanu ku kalsoonahay fikirkooda bal waa usoo noqon doonaa daawadayaasha laakiin aad baad ugu mahadsan tahay walaashay fikirkaaga runtii waxaa la oran karaa haddii ay kalsoonidu dhinto oo dadkuba waayaan wax u hadla dib wax walba shaki bay ka qaadi karaan qofkii hadlaba in la isleeyahay asagaaba soo dirayba anagu baas noo dhigaya ma la oran karaa waa la oran karaa runtii laakiin haddii qof walba inuu ra'yigiisa cabirana xaq buu u leeyahay waxaanse u sheegi lahaa dadka na soo wacaya Somali Channel iyo barnaamijkan soo wacaya ah Puntland iyo maanta inayan dhici karin sideedaba inaanu ammaano oo laba af yeelano dhibaatada ka jidha halkaa inaanu ammaano ma dhici karayse waanu sheegaynaa ciddii nagu nici lahayd iyo ciddii nagu rabi lahaydba dhibaato waa ay jirtaa mana jirto lama oran karo dhibaatada jirtana waxa weeye maamulka haddaanu criticize garaynana ma aha micnihiisu inaanu la jiro waanu la jiraa laakiin waa hadduu yeelo waxa dadku rabo oo waxa la wadaago uu madax ugu noqonayo aanu keligiis siin suldaan sidoo kale shacabka reer Puntland kolley dhinaca emailada iyo dhinaca telefoonada waxaad moodaa in dadku ay runtii sugayeen dad hadla oo codkoodu free yahay sida colorkiina uu soo sheegay Somali Channel wuxuu yiri waa horay ahayd inaad bilowdeen markii lidin ka soo ceyrshay mana u malaynayo kolley media badan oo ka hadasha waa jirtay hadalka dadweynuhu inay kacaan oo ku kalsoonaadaan oo madaxdooda wax u sheegi karaan hadday qaldan yihiin intee miisaan intee la egbeelada wallahi hadda adduunka haddii aanay jirinba in khaladka haddaan la istusin haddaan opposition haddaanu jirin waxba way baaba'an waayo fircoonba bashar buu ahaa waxa weeye waa loo heesay marka dambe dadkii waagu dhashay ogaaba wuxuu sheegtay inuu isagu ilaah yahay marka basharka hogaanka looma sii daayo waxa weeye waa inuu leeyahay waa in miisaan haddaanu jirin waxa weeye waa imanaysaa qofku inuu wax doono ku kaco sidii loogu sacbinayo marka caga badan siima yeelato taas soo gabagabayntii iyadoo barnaamij gunaanadkiisii aanu joogno sidaan hore u sheegayba experience iyo expert badan baad u tahay ehel baad u tahay xog ogaal baad u tahay founderskeedii baad ku maxaa dadweynaha maamulkan xagga iska dhigno dadweynaha reer Puntland maxaad kula talinaysaa dadweynaha waxaan kula talinayaa waa mare horta wixii aan dan u ahayn Puntland inayan cidna ka qaadan wixii dan u ahna inayan cidna ku caaridin waxaan kaloo kula talinayaa dadnimo yeesha oo waxaad ku yeelataan war waxaan nama qabtaan naga daaya maamulo haddii ayan taa yeelin sida ay u joogaan buu la go-ayaa dhulka Puntland oo dhab ah waayo waxaa imaanaya dhibaatada ka jidha koonfur oo kale haddeeyan inta goor tahay ayan tashan oo ayan maqlin isimadooda oo ayan maqlin nabadoonadooda oo ayan maqlin garboodkooda oo ayan maqal bulshada inteeda kale oo haweenka ugu horeeyo waxa weeye marka inay tashadaan markay tashadaanna ay oran karaan war maamulo waxaani nama qabteen naga daa oo sidaan iyo sidaa iyo sidaas wuxuu waa aynu wadaagnaaye nagu wad anugu intaasaan oran lahaa aad baa u mahadsan tahay suldaan hay maxaad baaqaaga ugu dambeeyay shacabka reer Puntland horta odagaaba gunaanadayba laakiin anigu dowladda maxaad ugu baaqi lahayd dowladda in badan baan la hadlayay anigu adeer malaha waxaa la yidhi haddii melag dhawaaqaayo miidaani dhiga ma leh sideeda haddii dad wax isku darsadaan qof wixiis xaqii kama faramaroojin kartid marka shacabka maqla oo waxay rabaan maqla oo waxay idiin dhiibtaan kolley qola initiative leh oo hal abuur leh ma aheen in intii loo dhiibay ay sideedu u ilaaliyaan hadday dib u celin karaan anigu malayn maayo anu hadda ismaliyi laakiin dastuur
iyo nidaam waxbaa loo dhibto leeyna hogaamiye wixii haddaan kolley wax ku darayn oo wax wanaagsan keenayn war inteedii ha ku hogaamiyeen arrintana meesheeda ha lagu soo celiyaan le qolada dowladda aad iyo aad baa u mahadsantihiin labadiinaba annaguna haddaan nahay bahda Somali Channel waxaan u rajeynaynaa Puntland iyo dadweynaheennaba tubta toosan iyo inay ku xaqa iyo xuquuqdoodaba ilaashadaan maamulkana waxaan ku rajeynaynaa inay maqlaan codka dadweynaha oo wixii qaladaad jira saxaan bini'aadan bayna kala qalad kama dhamaadee waa inta aynu mid kale ku kulmi doono anigoo ah Abuukar Cawaale martadeeda qiimaha leh Puntland iyo maanta next week email noo soo dira telefoon noo soo dira